Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada channelkeena Somali News. Waad la socotaan wax waliba oo cusub. Haddii aad ku cusubtay channelka, subscribe inoo saar. Wararka inaga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxay sheegeen in si toos ah loo galay Hotel Africa oo ku yaalo bartamaha magaalada Muqdisho una dhow dhanka iyo airport-ka. Wararka ayaa waxay sheegayaan in General Laba Afle oo ka mid ah saraakiisha dowladda iyo ciidanka ee ku jira Hotel Africa ay si toos ah ugu dagaalamayaan gudaha hotelka, maadaama rag hubeysan oo ay si toos ay u galeen hotelka. Wararka aynu hadda helayno ayaa waxay sheegayaan in dhankan iyo Taleex uu gaari saaruf ah oo si toos uga soo socday, kadibna uu si toos ugu leexday dhankaas iyo airport-ka isagoo afka saaray dhanka iyo Hotel Africa. Hotel Africa inta uusan gaarin waxaa ka sokeeyay dukaankaas ayaa waxaa la sheegay in nimankii ay ku dageen ay iska dhigeen saraakiil ama ciidamo doonayo inay wax gataan, halkaasna ay ku dageen. Gaarigii qarxayn uu horay u galay ama horay u dhaqaaqay, si toos ah markii uu qarxayna raggan hubeysan ay soo galeen. Hase yeeshee waxaa adag inay gudaha u galaan maadaama gudaha uu ku jira sargaal iyo ciidamadiisa oo si kedis ah ku noqotay ciidankii soo weeraray goobta. Ilaa hadda khasaaraha la hayo waa 6 dhimasho iyo tiro ka badan oo dhaawac ah. Hase yeeshee wararku marba marka ka dambaysa way isu soo tarayaan. Isha ku hay channelka insha Allah, waxaynu soo gudbin doonaa muuqaaladii ugu dambeeyay ee laga qaaday insha Allah.